asalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan isbuucyadii tegey waxaan ka hadlay scholarship mastercard foundation ay bixinayso iyo khaasatan jaamacaddaas united states international university africa oo kenya ku taala waa scholarship undergraduate oo loogu talagalay dadka digriga dhiganaya ama heerka koowaad ee jaamacadda dhiganaya oo hadda high school ka soo qalin jebiyey marka scholarshipkan si fiican oo faahfaahsan baa u sharaxay waxaanan idin ballan qaaday inaan sida loo xareeyana aan muuqaal ka samayn doono marka si aad u fahamtid scholarshipka fadlan hubi muuqaalka hore aan scholarshipka ku sharaxay wuxuu yahay faa'iidooyinkiisa inaad soo daawato youtube-ka ka heli kartid ama linkiga hadda koraynu ku riibi doono sidoo kale haddii aad channelku cusub tahay fadlan subscribe share like lana sii wadaag asxaabtaada waa tahay scholarshipka markaa akhrisid xogtiisa daawatid muuqaalka fahantid waxa cidda xareyn karta iyo waxyaabaha laga rabo oo idil iyo deadline-ka iyo kulliyadaha iyo waxoo dhan baa bejadkiisa hoosaa u imanaysaa barnaamijka begekan oo hadda aan ku jirno oo pdf-kana websiteka soomaaliya isku ayaa ka heli kartaa ama jaamacadda laftirkeeda jaamacaddaas ayaa ka heli kartaa xaggaas ayaa kasoo download garaysan kartaa waana pdf-ka ama documentiga applicationka lagu sameynayo marka goorta hoos usoo timaadid oo page 1 aad soo dhaaftid page 2 timaadid baa waxaa ku bilaabaysaa personal information marka laba qaab baa u buuxin kartaa dabcan pdf kas laba qaab baa loo buuxin karaa inaad heshid pdf-ka qaababkiisa aad editing toolskiisa aad isticmaali kartid ama aad iibsatid ama aad kuwa free heshid kuwaasoo aad computerka ku dul qortid oo kale oo aan sida hadda sameeyay oo kale aad heshid pdf aad ku qori kartid adoo xaafadaada jooga wax ku qori kartid sida aan hadda u qoray oo kale jaamac saasoo kale aad ugu qori kartid ama haddii ilaahay ku ogol yahay tiktok kale aad soo qaadisaan oo kale meelaha u saari kartid qaabkaas waa qaab digitaala oo dabcan online baa ku bixinaysa computerka ku bixinaysa ama telephone hadba ka isticmaalaysid qaabka labaadna waxa weeye in aad soo printer garaysid documentigan oo idil oo inta tagtid meelaha internet kafeeyada ama stationaryada inta soo printer garaysid in aad gacantaada ku buuxisid oo magacyadii halkan oo kale meelihii tigta la saarayay inaad kulli gacantaada aad adigu ku buuxisid labada qaab waa samayn kartaa anugu marka maadaama aan haysto pdf oo edit aan ku samayn karo computerka ayaan ku buuxbuuxiyey marka suusan waqti badan iga qaadan hore ayaan u buuxbuuxiyey intaanan videogan duubin laakiin hadda ayaan dul marayaa meelaha aan buuxbuuxiyey iyo sida aad idinkuna u buuxbuuxin karaysaan personal information baan ku bilaabin wax very simple boqolaal jeer baa aragteen qofka magaciisa koowaad magaca dhexe iyo surnamekiisii ama last nameka genderkaaga ama ma female baa tahay mise male baan doortay oo kale nationality waa soomaali dhalashadu waa taariikhdaas january bisha koowaad labadoo kale qofkaasi waa single buu jiraa wadanka uu ku dhashay waa soomaali u dhashay waa soomaali waana soomaaliya meeshuu ku nool yahay waa rural oo magaalo dabcan bassabor waa haystaa baan idhi bassabor numberkiisina waan qornay oo bassabor number feega wey dabcan bassaborka waxaa bixiyey soomaaliya qofka gmailkiisii oo ay dabcan yidhaahdeen capital letters ku qoray iyagaa dalbaday numberkiisii ood adigu bixin kartaan adresska u degan yahay marka almukarama muqdishoan ka dhignay luqadda koowaad uu ku hadlana waa soomaali luqadaha kale uu ku hadlana waa soomaaliya carabig haddii aad mid kale u baahan tahayna waa ku dari kartaa dabcan oo aad aaminsan tahay inaad luqad kale ku hadashid hadday tahay swahili oo kale ama english iyo carabi iyo turkish oo kale ama wuxuun kale aad garanaysid waa ku dari kartaa qaybtaas marka waxaan kaga soo gudubnay personal informationkii kadibna categoriga baa u imaanaynaa qofkaad tahay baad dabcan click siinaysaa ama saaraysaa check iyo crossmarka young woman haddaad tahay young woman anu man baa irin maankii baan saarna qofka hadduu refugee yahay ama qof soo barakacay ama qof naafa a yahay midkaas marka aad tahay baad isku talaab saaraysa ama sax hadba kii aad isticmaalaysid su-aasha xigtana waxa weye scholarshipka xagga kasoo maqashay websadeeda iyo social mediahan kasoo maqalnay baa dhahaysaa meeshaana waxaa loogu talagalay dadka doortay qaxootinimada oo kale inay qaxootinimada la siiyey midda ay tahay oo kale ay sheegaan haddii ay UNHCR ka diiwaan gashan yihiin numberkooda ay soo qoraan marka su-aalahan waxaan buuxbuuxin kara qofka refujiga ah su-aalaha xigana waxa weeye warqad caddaynaysa qofkani inuu loo kale gudaha ku barakacay ama uu sidoo kale yahay qof disability la ama curyaana marka warqadahaasna haddaa ka heli karaysid hay-adaha oo kale oo dadka caawiya waa iyagana waad soo gudbin karaysaa waa haddii aad ka tirsan tahay dadkaas wey
qodobka xiga waa academic information state degree program you are applying for midda aad doonaysid inaa xariisid baa lagu weydiiyey jaamacadda aad doonaysid ama kulliyadda aad doonaysid inaa xariisid bachelors of sciences in applied computer technology baana nagu doortay waxaana ka dooranaysaa 13 kulliyadood oo aan soo xusnay muuqaalka horena kaga soo sheekaynay meesha aad ka soo baxday iskuulka ka soo baxday banaadir secondary school oo muqdisho ku yaala sanadka qalan jibisay waa ku daraysaa imtixaankan waa centralized high school exams baa Soomaaliya laga galaa grade-ka aad keentay baa ku daraysaa isna halkan ku qoraysaa haddaa gacanta ku qoraysid iyo haddaa computer ku qoraysidba school type kuna waxa weeye public iyo government weeyaan meeshana waxa weeye haddii aad meelo kale ay dowladdu kuu dirtay ama laga diiwaan geliyo institution waxaas ma jiraan marka waa iskaga sii gudbaynaa taas oo kale ya iskuulka kaa bixiyay marka guardian banner guardian waa qof ama ka mas'uul oo kale waalidkaaga noqon kara ama qof qaraabadaada ay gacanta kugu hayo kale haddii ay dad kale jiraan oo kaa bixiyey waa soo gudbin kartaa haddii scholarship ku baratay warqad baa ka soo qaadan kartaa dadkii kaa bixiyey meeshaa hoosena markaas waxaa ku qoraysaa magacaaga iyo emailkaaga family information baad meeshan ku qoraysaa oo guardianski ama dadkii mas-uulka ka ahaa marka laba waalid baa meesha ku qoray laba waalid maaha waalid iyo walaal baan ku qoray meesha marka waalidka waxaan idhi ma shaqeeyo oo kale laana xogtaas oo dhan waxaa la rabaa qofka magaciisa surname-kiisa sida uu kuula xidido ama kuula xiriiro waxbarashadiisa nambarkiisa meeshuu degan yahay iyo adresskiisa ma garata marka haddii uu qofku shaqeeyanayna lacagta ku dartay marka qofkaan oo kale waxaan idhi taxi driver way $200 buu sameeyaa walaalkii aabana waxaan idhi retire buu wax mash qabto xogta yaryar baa iyadana gelgelinaysaa kadibna walaalaha siblings walaalaha baa meeshan ku taxaysaa iyo da-dooda haddii ilaahay ku ogol yahay genderkooda wiil gabar waxay yihiin waxbarashadooda u sareysa iyo income-kooda marka laba qof kaliya ka soo qaatay inta kale hadday badan yihiin soo qorqori kartaa maxamed oo mail oo nina 30 jira waxbarashadiisu ilaa primary bay gaarsiisan tahay $200 buuna bisha soo gasha qofka labaadna waa Faadumo Baaniri oo waxa weeye waa female 25 jirta ma waxbarashada ma laha waxna ma soo golaan lacag marka magaciiba marka host ku qoraysaa xaggana waa short answer questions waa essays yara lagu weydiiyey within the provided spaces marka space-ka lagu siiyey baad ku qoraysaa marka xoogaa xaggan waxba fiicnaan lahayd qofku inuu gacantiisa ku qoro kale laana goortaad computer wax ku qortid wax laga yaabaa laynanka inay saa kaa dardarsamaan marka su-aasha lagu weydiiyeyna waxay ahayd leadership-kaaga lagu weydiiyey positionaa hore usoo qabatay mara group hogaamisay project aad maamulaysay marka iyagana haddii aad ilaa idmo isayadaa waa qori kartaa waxaa isticmaali kartaa AI-da oo kale oo OpenAI ama ChatGPT sida loo yaqaano baad weydiin kartaa tusaalayaal kadibna waxa uu ku siinayaa sambalkaasna waxaad samaynaysaa inaad adigu haddii ilaahay ku ogol yahay bedbedelatid oo khibradaada aad dabcan ka dhigtid marka su-aasha koowaad saasaan uga jawaabnay su-aasha labaad waxay ahayd award iyo honors ama bilado lagu siiyey biladaha taxaysa xaggan ku qoraysaa saddexaadna waxaa lagu weydiiyey what are you passionate about and how will your program of study contribute to your passion waxaad yacni passion ku tahay oo aad iyo aad u xiisaysid oo jeceshahay ma jiraan sida buusan u caawinaya programkaaga u caawinaya passionka ama jacaylka ama xamaasadaas aad leedahay iyadana jawaab yaroo koon baan qoray laakiin iyadana intaas dhaafin lagu siiyey magacaagay mar kale ugu dambeynna waxaa qaybahan dambe looga hadlaya community engagement oo Mastercard Foundation waxa uu xiiseeyaa baa leeyahay dadka fishing kale scholarska dadkooda gadaal wax uga celiyay marka waxa lagu waxa qeexda voluntary community activities and experience you are engaging in the past taariikhdaadii hore waxyaabo volunteer tabarucaada arrimaha bulshada waa ka qayb gashay iyagana waan qoray clean water access project waan ka soo shaqeeyo kala baan iri isagana xog yar baan ka bixiyay saas oo kale adiguna xog ka bixin kartaa kan kale xigana waxa weeye social change how you plan to achieve social change through your program or study isbedel bulsho ma ka qayb qaadatay ama ujeedkaaga iyo rajooyinkaaga maxay yihiin aad doonaysid in Soomaaliya dadkeeda ku bedeshid haddaa ka soo qayb qaadatay ama haddii aad qorsheynaysid balaankaaga ay ku jirtana eraya dhowra ka qor marka waxaad badan ma mid kasta dhowr sentence baa ka qori kartaa magaca iyo emailka marka soo isku qoraysaa activities baan u imaanana activitieskana waxa lagu yiri 3 most important activities baa qoraysaa category kasta marka haddii leadership iyo school level la yiraahdo waxaan councilka oo kale baan ka soo mid ahaa waxaan ahaa council president ururka ardaydan madaxweyne u ahaa 2 sano xil ka hayay
class president waan soo noqday fasalka inaan guddoomiye ka noqdo isagana sanad team captain oo footballka baan ahaa sanad volunteerkana sidoo kale ilaa 3 baanu kasoo qornay painting iyo iskuulka la nadiifiyey iyo cultural promotion iyo waxyaabahaas oo iyagana bilo iyo aan kasoo shaqaynay businesska iyo entrepreneurshipka isagana waa waxyaaba la xiriira workshop iyo startup iyo negotiation iyo sales iyo waxyaabahaas ka qayb qaatay oo iyagana roolkaagu wuxuu ahaa qaybta ka qaadatay iyo waqtiga uu socday baa halka ku qoraysaa marka iyagana dabcan google waa google garayn kartaa waa ogahay Soomaaliya waxyaabahaas kama jiraan laakiin waa google garayn kartaa waxyaabaha activity-da iskuulka laga qabto kadibna waad ku darsan kartaa oo wax weeye adiguna haddii aad banooniga iyo guddoomiyaha ururada ardayda iyo waxyaabaha ka qayb qaadatay iyagana sidaas ugu sharaxi kartaa ka ugu dambeeyana waa music festival kan oo kale ma waxaad uma aha active laakiin athletic-gii baa wixii sportska la xiriira marka athletics oo kale dhowr tusaale ka soo qaadan kartaa roolka ka dhashay iyo numberka sanadada aad lugaha kula jirta barnaamijyada xogo kale oo dheeri hadii jiraan xagana ku qorayso jeceshay inaad la wadaagtid ugu dambeeyna waxa weeye certification page oo waxa weeye waad cadaynaysaa xogta aad gudbisay inay yihiin run accurate sax yihiin hadii la ku ogolay wax beenana ka jiraan kadibna waa saxiixaysaa taariikhdii baa ku qoraysaa maalinkaas ugu dambeeyna waa wax isku diyaarinaysaa inaad dirtid marka intaadan dirinna waxa waaye halkan waxay yiraahdeen guidelines bay ku siinayaan sida u diraysid aad u akhri baa leeyahay taxadar loo akhri dokumentiyada soo ururso hadii la ku ogol yahay xogtii hore oo aanu isbuuc hore ka sheekaynay kale iyagana akhriso muraajacada badi one application hal xabana dir oo dhowr xaba dirin markii aad diraysidna dokumentiyadu kulli waa inay scan ahaadaan oo PDF ahaadaan marka haddii aad kan printer garaysay oo kale oo aad soo bixisay gacantaada ku bixisay waa inaad mar kale PDF ka dhigtid oo scan garaysid haddii aad saan u samaysanad dabcan PDF buuba kuugu degayaa marka emailka halkaana ka soo koobiyeysanaysaa goorta koobi tiraadina koobi paste baa waxa ku dhahaysaa gmailka aad dabcan diraysid xaga ku gelinaysaa subjectigana meeshaana la yiraahdaa oo magacaaga iyo waxa gelinaysaa hadii ku ogol yahay nationality-gaaga kadibna qoraal yar waa raacin kartaa kadibna dokumentiyada xagana ku guraysaa dabcan kanoo kale haduu ku yahay documentiga mastercard-ka kuwan ay ku yihiin oo kale passportkii iyo dokumentiyadii kale laga rabay saasaa dhahaysaa kadibna send baa dhahaysaa xog yarna xagga waa ku qori kartaa attached are xogta halka ku qoran waa kuwii full admission-kii oo dhan saasaa u diraysaa waa tahay marka guntii iyo gabagabadii intaas weeye inta aan dabcaynaan video kooban oo orada ka sameeyo aad ba u boobsiyey waan ogahay insha Allah faylkan aan biyaro buuxbuuxiyeen isagana groupka Telegram-kan soo dhigaya marka hadaadan groupka Telegram-ka ku jirin hubi inaad ku soo biirtid sidoo kale ha ilaawinin inaad channelka subscribe tiraadaan si bulsho badan u gaaro videogan si gudbisaan oo like iyo comment aad ku darsataan wixii su'aal aad qabtaan qaybta comment-ga igu soo weydiiya ama groupka Telegram-ka iga soo weydiiya ilaa muuqaalkan kan xiga oo aan scholarship kale uga hadli doono isbuucan insha Allah oo Yusuf Shroydin la isma dhaafin assalaamu calaykum